السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. example CPI. CPI waxaan u naqaanaa cycle per instruction oo macnaheedu yahay computerka CPU-giisa markii uu program wax sameynaya wuxuu sameeyaa wareeg wax loo yaqaano cycle. Marka waxaa jirta marka instructionna ayuu qabanaya. Instructionadaas marka halkii instruction meeqa wareeg ayuu sameeyey. Example-ka marka waxaan fiirinaynaa laba machine oo isku qaab dhismeed ah ayaa waxay hal program waxay ku qaadatay inay mid walba intaan ay ku qaadatay. Machine A waxay ku qaadatay clock cycle-kiisa waxay ku qaadatay 250 picoseconds oo macnaheedu yahay computerkaas saacadiisa inay tahay clock rate-giisa inay tahay 4 GHz. CPI-giisana uu yahay 2.0 inuu yahay. Marka CPI-ga markaan waa lagu siiyey. Sidoo kale machine B waxay ku qaadatay 500 oo picosecond ayay ku qaadatay oo macnaheedu yahay 2 GHz. Waxaa lagu siiyey CPI ama cycle per instruction-ka oo ah 1.2. Marka CPU time waxaa lagu helaa IC oo loo yaqaano instruction count lagu dhuftay CPI lagu dhuftay CC. Aan raadina marka CPU time A. CPU time A waxaa lagu helaa IC lagu dhuftay CPI oo hadda anaga noo taagan 2.0 lagu dhuftay 250 oo macnaheedu yahay 250 picoseconds. Waxaa noo soo baxaya marka CPU time-ka oo la macno ah 2.0 lagu dhuftay 250 lagu dhuftay, taasoo macnaheedu yahay inuu noo soo baxayso IC CPU time macnaha CPU time A waxay la mid tahay IC lagu dhuftay 500 picoseconds oo macnaheedu yahay 2 lagu dhuftay 250. Marka hadda waxaan soo saarnay CPU time oo machine A ayaan soo saarnay. Marka su'aashan dambe oo ah what machine is faster for this program waxaan ku jawaabi karnaa marka aan helno labada machine CPU timekiisa aan helno. Sababtoo ah midka CPU timekiisa uu yar yahay ayaa awood badan oo macnaheedu yahay ninkan waqtiga uu yar ayuu shaqo ku qabtaa waa faster waa asiga xawaara badan. Marka CPU time B waxaa loo heli karaa IC loo qaybiyey CPI lagu dhuftay CC oo macnaheedu yahay clock cycle. Marka erayadan waxaa loo soo gaabiyaa malaynaya inaad taqaanaan. IC waxaa loo soo gaabiyey instruction count, CPI waxaa loo soo gaabiyey cycle per instruction, CC waxaa loo soo gaabiyey clock cycle ayaa loo soo gaabiyey. Marka waxaan leenahay CPU time waxay la mid tahay machine B ayaan xisaabinaynaa IC lagu dhuftay 1.2 lagu dhuftay meesha waxaa noo yaalo 500 ayaa lagu dhufanaya. Marka 1.2 lagu dhuftay 500 1.2 lagu dhuftay 500 picoseconds oo macnaheedu yahay IC lagu dhuftay 1.2 times oo la macno ah 600 picoseconds la macno. Marka hadda waxaan soo saarnay CPU time oo machine A waa soo saarnay, CPU time oo machine B waa soo saarnay. That's why waxaan haysanaa marka hadda labada computerba CPU time-keeda. Marka kee xawaara badan? Midka xawaara badan waxaan ku ogaanaynaa kee waqtigiisu yar yahay. Waxa waqtigiisu yar yahay machine A. That's why waxaan leenahay marka machine A is faster. Machine A ayaa xawaara badan because waqtigiisa ayaa yar. Qofna wuxuu ku orday 500 oo second, qofna wuxuu ku orday 600 oo second. Marka qofka 500 oo second ku orday meeshii la rabo ku tagay ayaa xawaara badan sababtoo ah kan 600 ay ku qaadatay oo wuxuu dheeryahay 100 ayuu dheeryahay. Marka midka xawaaraha badan waa midka waqtigiisa uu yar yahay. Marka taas waxaan leenahay marka machine A is faster by how much ayaa lagu dhahay marka. Relative performance waxaan ku raadin jirnay haddii laba machine la isbarbar dhigayo X iyo Y ay yihiin performance X loo qaybiyey performance Y oo macnaheedu yahay in 600 loo qaybinayo 500 loo qaybinayo. Marka waxaan leenahay performance X loo qaybiyey
performance y performance x loo qaybiyey performance y taasoo macnaheedu yahay 600 oo picoseconds oo ah CPU time b oo macnaheedu yahay mar walbaba qaybinta tirada weyn ayaan dul marinaynaa 600 loo qaybiyey 500 waxa aan had soo saari waa maxay times y oo macnaheedu yahay average-ka waaye boqolkiiba meeqa marka 600 loo qaybiyey 500 waa 1.2 times. That's why machine ayaa wuxuu xawaaro badan yahay 1.2 times ayuu xawaaro badan yahay wuxuuna ka xawaaro badan yahay machine b ayaa laga xawaaro badan yahay. Waxaan rajeynayaa in la fahmay la socdo insha Allah example-ka xiga iyo mid kale hadduu Ilaahay yiraahdo. That's why hadda marka intaas waxaa ku eg example-kii maanta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.